xubinta beerku waa mid soo saarta tamar wuxuu qabtaa shaqooyin kala gedisan oo muhiim ah soo saaridda xaddi borotiinna cholesterol iyo bile kaydinta fitamiinada macdanaha iyo xitaa karbohaydrayt sidoo kale wuxuu burburiyaa sumaha dawada iyo kuwa sida dabiiciga ah oo habka metabolismka u soo saaro kuulaalinta qaabin wanaagsan beerka waa muhiim joogtintiisa caafimaad kafayga waa mid ka mid ah cabitaanada ugu wanaagsan ee loo cabo horumarinta caafimaadka beerka daraasado ayaa ina tusaya cabidda kafaygu ay tahay mid ka hortagta xanuunada ama cudurrada beerka xitaa dadka iyagu dhibta hore uga qabay xubintan ama beerka cabidda kafayga waxay yareysaa samaysanka kasarka beerka bararka iyo xaydha ama duxda beerka waxa ku jirta sidoo kale antioxidants awood u leh yaraynta free radicalska kuwaas oo dhaawici kara unugyada beerka canabka cilmi-baadhis ayaa lagu xaqiijiyay in bani'aadamka iyo xayawaanku canabka iyo waxyaabaha laga soo saaro siilka canabka ay ka hortag u yihiin dhaawaca beerka iyo soo qaadida antioxidantska iyo la dagaalanka bararka beerka lowska duxda iyo nafaqeeyayaasha ayaa ku badan waxa ku jirta antioxidants vitamin E iyo isqalafyo kale oo waxtar leh oo muhiim caafimaadka wadnaha balse wuxuu leeyahay awood kale oo ah beerka baaritaano lagu sameeyay dadyo qaba xanuunada beerka ayaa la arkay isticmaalkiisa kadib lowska natiijo wax ka oola lowsku wuxuu horumariyaa enzymeska beerka oo badi qaabilsan shaqada beerka duxda kalluunka waxa ku jirta omega 3 fatty acids oo dux caafimaad taas oo rida bararka iyo la xiriiriyo hoos u dhigida khataraha cudurrada wadnaha duxda kalluunka sida la sheegay waa mid waxtar u leh beerka waxa hubaala in daraasada lagu arkay inuu ka hortag u yahay duxda samaysanta joogteynta enzymeska beerka si caadi ah la dagaalanka bararka iyo horumarinta insulin saliid saytuun waxa loo tixgeliyaa dux caafimaad saliid saytuunta sababta ayaa faa'iidooyinkeeda badan ee caafimaad daraasado ayaa hoosta ka xariiqay in saliid saytuunta isticmaalkeedu uu hoos u dhigo duxda beerka sar u qaadida qulqulka dhiigga iyo horumarinta heerka enzymeska ee beerka shaaha waxaa si mug iyo baaxad leh loogu tilmaamaa mid faa'iido caafimaad leh laakiin cadaymo ayaana tusaya inuu leeyahay faa'iido kaliya oo beerka daraasado ayaa xusaya in shaaha madow iyo green tea ay horumariyaan enzymeska iyo isu dheelitirka heerka duxda beerka carrot waa mid si xad dhaaf ah ay ugu badan tahay maadada beta carotene cunitaankiisu wuxuu sare u qaadaa shaqada iyo inuu ka caawiyo guud ahaan shaqada beerka toonta kaliya waa mid xaddigeedu yar yahay taasoo awood u leh dardargelinta shaqada enzymeska beerka iyo inay ka caawiso in jirku dibadda isaga saaro sunta toonta sidoo kale waxa ku jirta xaddi badan oo lysine iyo selenium labadooduba si dabiici ah oo isku dhafyo beerka nadiifiya avocado waxa ku badan nafaqeeyaal waana cunto mucjiso leh waxay ka caawinaysaa in jirku soo saaro glutathione isku dhiskan iyo muhiim ah in beerka laga safeeyo sumaha khataraha badan tufaaxa waxa ku badan tufaaxa pectin tufaaxu wuxuu hayaa chemicals kuwaas oo faa'iido ah jirka iyo inay ka nadiifiyaan iyo sii deynta sumaha ka imanaya dheefshiidka tanna waxay beerka ka dhigaysaa mid gacan weyn ka geysta xaddiga badan ee sunta ah xilliga safaynta kaarotadu waa xidid khudradeed taas oo badanaa la sheego inay tahay cuntada ugu wanaagsan xagga caafimaadka dhadhan ahaan waa mid nafaqo sare leh kaarotadu waa il weyn oo qani ku ah beta carotene fiber vitamin K potassium iyo antioxidants kaarotadu waxay ka mid tahay cuntooyinka ay Soomaalidu taqaano lagana helo dhulkooda kaarotadu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo aan ahayn kaliya inay aragga wax ka tarto waxaynu halkan ku soo koobaynaa cudurro kaarotada ka hortag ahaan lagu qaato cholesterol cilmi-baadhis lagu sameeyay dad qaba cudurka cholesterol oo ku nool dalka Ingiriiska waxa ka soo baxday in heerka cholesterol ama subagga dhiigga uu hoos u dhacay 12% markii ay qaateen in ka yar rubuc kaarota maalin kasta muddo 3 isbuuc sida awgeed khubarada caafimaadku waxay talahaan ku soo jeedinayaan haddii xanuunkan lagu sheegay ama aad halis ugu jirtid ku dadaal cunista kaarotada si aad uga maarantid dawooyinka loo qaato caafimaadka wadnaha daraasad ay sameeyeen cilmi-baarayaal u dhashay dalka Sweden waxay soo daabaceen qoraal ka hadlaya sida kaarotada uga hortagto cudurrada wadnaha iyagoo isbarbar dhigay dadka joogtay cunista kaarotada iyo dadka aan qaadanin daraasadan ayaa lagu xaqiijiyay waxtarka kaarotada ee wadnaha iyo badqabkiisa dhiigkarka kaarotada waxaa ku jirta potassium waxay jirka u tartaa inay waasiciso ama ay fidiso xajmiga xididdada dhiigga khaasatan marka cadaadiska dhiigga uu kaco waxa kale oo kaarotada ku jirta maado kale oo loo yaqaan coumarin
oo iyaduna cadaadiska dhiigga xakameyntiisa ka qayb qaadata. haddii dhiigkarku kugu cusub yahay, isticmaal kaarootada maalin kasta oo joogtay adoo cadaadiska dhiiggana cabiraya si aad u ogaato waxtarka kaarootada. difaaca jirka. kaarootada waxay ka mid tahay cunnada difaaca jirka sare u qaada, taasoo firfircooni dheeri ah ku abuurta unugyada cadcad ee dhiigga. waxay shaqadoodu tahay la dagaalanka cudurdhaliyaha, waxay jirka ka difaacaan caabuqa noocyadiisa kala duwan. dheefshiidka. sida khudradda cagaaran oo kale ayay kaarotadu iyana u wanaajisaa dheefshiidka, sida inay sare u qaado shaqada caloosha iyo mindhicirada qofka. waxay kale oo ay ka hortagtaa calool istaagga ama calool fadhiga, taasoo yaraysa halista samaysanka babaasiirta. kansarka. kaarotada waxaa ku badan beta carotene. maadadan waxay yaraysaa halista kansarka, khaasatan kansarka sababka, sida lagu arkay daraasada la qaaday. haddii qofku maadadan uu ka qaato 2.7 milligaraam maalin kasta, inay yareynayso halista kansarka 40% markii lagu tijaabiyey dadka sigaarka aad u caba. cilmi baaris kale waxaa lagu arkay inay yarayso halista kansarka malowdka ku dhaca. taasi waxayna tusaysaa in kaarotada ay leedahay faa'iido weyn haddii la joogteeyo. indhaha. kaarotada waxaa ku jirta maadada beta carotene, taas oo faa'iido weyn u leh indhaha kana caawisa aragga. marka kaarotada la cuno, maadadaas waxaa la geeyaa beerka, kadibna beerku wuxuu u bedelaa vitamin A. kadib vitamin A-ga waxay isha u sii bedeshaa maadada muhiimka u ah isha ee u baahan tahay ee loo yaqaano rhodopsin, waana maadada u qaabilsan aragtida midabka. maadada beta carotene waxay kaloo ka hortagtaa dhaawaca macaanka ama sokorta isha u geysto iyo samaysanka caadka indhaha fuula. ilkaha. kaarotadu waxay kordhisaa saliifada ama candhuufta, waxaana la dagaalantaa bakteeriyada afka ku dhalata, taasoo keenta af urka. sidaasna waxay ku yareysaa samaysanka suuska, waxaana sare u qaadaa caafimaadka iyo badqabka ilkaha. daraasado ayaa soo jeedinaya cunista kaarotadu ay u roon tahay ilkaha. faaliga ama shalalka. cunista kaarotada maalin kasta waxa ay yareysaa halista faaliga ama shalalka 8%. daraasado badan oo la qaaday ayaa si adag u taageeray saameynta kaarotada ay maskaxda ku leedahay. cilmibaarse kale ayaa lagu sameeyey bukaano qaba cudurka faaliga ama shalalka, ayaa la arkay in kuwoodii qaatay xaddi badan oo ah maadada beta carotene, taasoo laga helo kaarotada, ay noqdeen kuwo ka badbaaday cudurka faaliga ama shalalka. macaanka ama sonkorta. kaarotadu waxay xadidaa heerka sonkorta ee dhiigga, waxa aanay ka hortagtaa howlgabka ama firfircooni yarida ku timaada unugyada soo saara insulinta ee ganaca. baaritaano la qaaday ayaa waxay soo jeedinayaan in dadka qaba sonkorta ama macaanku inay dawaahaan u isticmaalaan iyagoo aan wax sonkor ah ku darin. miisaanka. sida cuntooyinka kaalorigu ku yaryahay, kaarotadu waxay dhergisaa qofka iyo inay yarayso qaadashada cunto badan oo isku xigxigta xilliga cuntada. haddaba siday aaminsan yihiin xeelleeyaasha cuntada iyo miisaan dhimistu, iyadoo sababta la eegayo, isticmaalkiisu waa mid waxtar leh marka ay noqoto miisaan ridista.